wasiirada beeraha ee dalalka Suudaan iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis is-afgarad ah oo la xiriira dhinaca beeraha. Wariyaheena Yuusuf Maxamed Macalin Yuusuf Kashmir ayaa warbixinta warkan Khartoum inooga soo diray. wasiirka beeraha ee dawladda federaalka Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo heliyo qaybsanaa dhanka warfaafinta safaaradda Fiido Maxamuud Fiido ayaa la saxiixday heshiis is-afgarad ah dhiggiisa dalka Suudaan ka oo hayna sameeyo gudi isku dhaf ah oo farsamo. Suudaan waxay ka mid tahay wadamada aadka ugu fiican wax soo saarka beeraha iyo waraabka waayo waxa mara Niilka iyo wasiirka beeraha dawladda federaalka Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid heshiiska ay wada galeen labada wasaaradood ayaa dhacay sanadka markuu ah 2003 balse hadda uu ay tahay sidii loo dardargelin lahaa heshiiskii waqtigaasi la galay ayuu wasiirka oo warramay warbaahinta qaranka. saaka ayaanu xarunta wasaaradda beeraha kulan ku yeelanay wasiirka iyo tiimkiisa waxaan ka wada hadalnay iskaashiga beeraha Suudaan iyo Soomaaliya. wada hadalkaasna wuxuu ku dhamaaday in hadda aan soo saxiixnay heshiis iskaashi oo labada dal ah oo dhinaca beeraha oo daboolaya dhammaan qaybaha beeraha iyo iskaashiga. waxaan ku heshiinay in gudi isku dhafa la magacaabo oo ka shaqeeya dabagalka fulinta qodobada lagu heshiiyay. dhanka kale wasiirka beeraha dawladda federaalka Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in Suudaan ay soo saarto aqoon-yahanada ugu badan ee barta cilmiga beeraha ayna go'aansadeen ka wasaaradda ahaan in lagu abaalgudo khubarada Suudaan ee bartay cilmiga culumta beeraha ee ka imaanaya hay'adaha dawliga ah in laga dhigo laguna tixgeliyo Suudaan maadaama Suudaan iyo Soomaaliya ay wax badan ka dhaxeeyo. maadaama wadankan uu yahay wadanka ugu badan oo ardayda Soomaaliyeed waxbarashada bilaash siiyay muddada burburka ayadana inaanu arintaas abaalgud uga dhigno inaanu dadka khabiirada oo ka imaanaya hay'adaha dawliga iyo dadka iska nalaal wada qabsiga inaan dhiirigelin inay iyaga ay u fududahay wax badan Soomaaliya la xagalaan dhinac walba marka in laga faa'iideysto insha Allah iyagu diyaar bay u yihiin. waxaan rajeynayaa in iskaashi fiican oo beeraha uu dhexmari doono aan ka faa'iideysan doono. wasiirka ayaa ka mid ah tiro wasiir ah oo muddo 3 cisho booqasho rasmi ah ku joogay magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan. Yuusuf Maxamed Macalin Kashmir warbaahinta qaranka caasimadda dalka Suudaan Khartoum.